midowga musharaxiinta mucaaradka ah ee Soomaaliya ayaa mar kale ka hadlay khilaafka muddada ka dhex taagan ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo war-saxaafadeed midowga musharaxiinta mucaaradka ah ay soo saareen ay ku booriyeen golaha wadatashiga qaran in la dedejiyo howlaha doorashooyinka sidoo kalena waxay beesha caalamka ugu baaqeen inay gacan ku siiyaan golaha wadatashiga qaran degdega waa markaasi degdeg ku qabsoomida doorashooyinka waxayna tilmaameen shakhsiyaadka ay u arkaan sidoo kale inay hortaagan yihiin doorashada sida laga dheehan karay qoraalkooda midowga musharaxiintu war-saxaafadeedkooda waxay sidoo kale ku sheegeen inay indhaha ku hayaan dhaqdhaqaaq ciidan iyo shirqool ay maleegayaan sida ay sheegeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo taliyihii hore ee NISA waa sida qoraalkooda kaga qorneed bogaga ugu dambeeya oo qoraalkooda ay ku xuseen waxa ay sidoo kale sheegeen inay carqaladeynayaan horaha doorashooyinka ayaga oo rabo in xasilooni darro iyo qalqal amni ay dalka geliyaan waxa ay sidoo kale sheegeen in Farmaajo uu qaadayo wixii mas'uuliyad iyo cawaaqib xumo ah oo ka dhalata falalkaasi guracan war-saxaafadeedka oo ka koobnaa 6 qodob ayaa waxa ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble looga codsaday inuu ku dedejiyo howlaha doorashooyinka uusan gorgortan ka gelin doorashooyinka dalka iyo wareejintooda waxaana qodobada ay ka hadleen ay ku wajahnaayeen ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble golaha wadatashiga qaran ee hoggaanka u hayo ra'iisul wasaare Rooble iyo beesha caalamka ayagoona u qornaan sida tan goluhu wuxuu ku dheerigelinayaa ra'iisul wasaaraha inuu dardar geliyo howlaha doorashooyinka gacan ku dhiga amniga dalka marna uusan gorgortan ka gelin heshiiskii 27kii Maajo ee loogu igmaday gacan ku haynta amniga iyo daadihinta doorashooyinka dalka goluhu wuxuu diyaar u yahay inuu hawshaasi culus ku garab siiyo ra'iisul wasaaraha iyo inta kala shaqeynayso goluhu wuxuu ku boorinayaa golaha wadatashiga qaran in la dedejiyo howlaha doorashooyinka loona fududeeyo sida ugu sahlan ee degdeg ugu qabsoomin karto doorashooyinku lana turxaan bixiyo tabashooyinka laga qabo habraaca si dalka looga samata bixiyo hubanti la'aanta siyaasadeed iyo amni wuxuuna diyaar u yahay goluhu inuu hawshaasi ku gacan siiyo 3 wuxuu adkeynayaa goluhu in ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya aysan siyaasadda ku milmin kuna garab istaagaan golaha wadatashiga qaran sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho kana hortagaan cid kasta oo isku daydo inay doorashada qalgal geliso goluhu wuxuu ugu baaqayaa beesha caalamka in golaha wadatashiga qaran ay gacan ku siiyaan degdeg ku qabsoomida doorashada tilmaamaan shakhsiyaadka qasadayaasha ah ee hortaagan howlaha doorashooyinka sida hadalkooda ay ku sheegeen goluhu wuxuu indhaha ku hayaa dhaqdhaqaaqa ciidan iyo shirqoolka ay maleegayaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo taliyihii hore ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir si ay u calaqaladeeyaan howlaha doorashooyinka una abuuraan xasilooni darro iyo qalqal amni goluhu wuxuu marnaba ma yeeli doono in ay taasi dhacdo wuxuuna cadeynayaa in madaxweyne Farmaajo uu qaadayo mas'uuliyadda iyo cawaaqib xumadii ka dhalata falalkaasi guracan sida ay ku sheegeen qoraalka ay soo saareen maanta midowga musharaxiinta mucaaradka ee Soomaaliya isla markaana ay kaga hadlayeen khilaafka u dhaxeeyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa injineer Maxamed Xuseen Rooble goluhu wuxuu dalbanayaa cadaalad u helista kiiska Ikraan Tahliil iyo ehelkeeda wuxuuna ugu baaqayaa hay'adaha garsoorka in loo daayo kiiska wuxuuna xeer ilaalinta iyo maxkamadda ciidamada ku boorinayaa inay cadeeyaan caqabadaha hortaagan kiiska Ikraan Tahliil iyo cadaaladda Ikraan Tahliil ugu danbeyn goluhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed madaxda golaha wadatashiga qaran iyo beesha caalamka in si wada jir ah isaga kaashadaan iskaga kaashano sida ay dhaqso ugu qabsoomi lahayd doorashada xilligeedii aadka uga daahday meelna uga soo wada jeesano shakhsiyaadka qaswadayaasha ah ee carqaladeynaya howlaha doorashooyinka ayaa lagu soo gabagabeeyay warkan maanta ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka ah ee Soomaaliya